الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. كتابك تفسير القرآن الكريم وحا نوجوغي سورة الأحزاب أول كذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. suuradan waxay ka sheekayn doontaa aqlabkeeda axkaamta nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu madiine tegay loo soo dejiyey la amray awaamirtaas waxa uga horeeya غزوة الأحزاب. يا أيها النبي نبغى كانوا اتق الله ألك عبسو ولا تديح أضيع الكافرين قال ذي ورك هذا هيلين والمنافقين المنافقين ورك هذا هيلين إن الله كان وحو هذا الله أون أهان دونا أون أها حدا وياهي عليما الوحكستا حكيما فلسان. نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام markuu madiina u soo haajiray waxaa ka dab yimid wafdi mushrikiinta gaaladii reer maka ah oo dhahaya ilaahyaalkayna hanaga caynin dadka madiina joogo oo hebel dhibaata ha gaarsiinin oo munaafiqiintii cabdullaahi bin ubay bin salul uu ka mid yahay. asxaab rasuulillahi aaday u xanaaqeen asnaamtu waxba ha ka sheegin iyo hebel ha taabanin oo macnaha jadwalkooday ka shaqeeyaane asxaabtu way xanaaqday. alla marka rasuulku la hadlay wuxuu yidhi ittaqillah alla ka baq rasuulallow nabiga alla ittaqillah bal ka war micnaa taqwada alla daa'im waa taqwada alle daa'im joogtee walaa tudici alkaafiriina waalmunaafiqiin gaalada reer maka munaafiqiinta reer madiino warkooda ha yeelin. maxaa ka mid a inay dhaheen cabdullaahi bin ubay bin saluul iyo asxaabtiisa badbaadi asnaamtayna waxba ha ka sheegin. taas waa markaas leeyahay warkooda ha yeelin waxay la mid tahay qolkii alla ahaa suuratulqalam walaa tudic kulla xallaafin mahiin hamaazin mashhaa'in binamiim مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. السلام المنافقين وركوضة لما بيلا يبا سيدكو أغانيس هذا مركا حضيبكو أمران وحسن الله قلين ومنافق إسك إلاله إن الله ألا كان وحو هذا ألا أون أهان دون أوني هاي أبد كزنو أها عليما الوحكستا حكيما فلسان. يا أيها النبي رسولك عليه الصلاة والسلام مقعيس مركي ناذل جوغو مقعيس متحن لوغو من ناذيه اللوغو من ناذيه. يا موسى يا إبراهيم يا نوح والله لك يا محمد ميا يا أيها النبي يا أيها الرسول يودها الله رسولك مركو وناذينا لكن مقع مفرد كيس مركو لها محمد رسول الله وضعدا أو محمد رسول الله لكن وقت نادذا مقعيسا متحان ميا صادرات هذا المؤمنين تنوحى الأمرين إن مقعيسا متحان أي يكون واقين أي دها يا رسول الله يا نبي الله أي دهان واتبعها ولا تدع الكافرين أيضا وحي أمر يسا إن قالت وركيد أن لييلين قالت وركيد أن لييلين ما أنتي سما ودعم للي هيبة وركود واب مدحو سارين هيبة لما أقول إن الله كان عليما حكيما ألا فالكو فلا يؤدم ومد حكمة كل سنة وحاكم إذا قفك حولها لسينايو حدي فخر لغادقو الوحوقي هاي إنو دباتكينايو إنو وحضو إنو دعو wax dilo xoolo daraadood
صدرات حولها سلوى قبوجنا ومصلحة الله haddana qofka faqriga laga dhigaayo al wuxuu og yahay haddii xoola la siiyo inuu dhibaato keeni lahaa xoolahaas oo muslimiinta ku dhibaatayn lahaa wattabic raa rasuulallah maa shayga raa yuuxaa la waxyoonayo ilayka adigu lagu waxyoonayo raac min rabbika rabbiga xaggiis lagaaga waxyoonayo raac ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday alle bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysan dad yahow aad camal falaysaan khabiiran alii baadin og ayuu ahaaday watawakal tala saaro naba allow cala allah alla tala saaro wakafaa billaah alle ayaa ku filan wakiilan tala saarasho alla ugu filan wattabic maa yuuxaa ilayka min rabbik rasuulka alle waxaa la amray inuu raaco waxyaalaha loo waxyoodo annakan waxaan la amray laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasanatu ayaanalah inan ku dayanaana la amray idan maxalu shaahidka kulligiinaba waxyaga daba istaaga waa meel uusan waxyi ka hadlin ha ka hadlina ina allaha kaana bimaa tacmaluuna khabiira al wuxuu ahaaday waxaad camal falaysaan al baadinkood hoose og watawakal cala allah alla tala saaro rasuul keligiisaa la amray annakana waa la jirnaa al in la tala saarto talada loo dhiibtaa la rabaa wakafaa billaahi wakiila kafaa iyada faacilkeeda badanaa ba ayuu laazimaa allah ku filan tala saarasho axadka la tala saarto alla ka weyn ma jiro maa jacala allahu lirajulin min qalbayni fii jawfihi wamaa jacala aswaajakum allaa'i tudaahiruuna minhunna ummahaatikum maa jacala allahu alla ma yeelin lirajulin nin min qalbayni laba qalba uma suubinin fii jawfi colooshiis dhexdeeda lama qalba ma yeelin wamaa jacala alla ma yeelin aswaajakum xaasiskiina allaa'i xaasiskii tudaahiruuna ad dihaaraysaan minhunna ayaga ad dihaaraysaan kama dhigin ummahaatikum hooyooyinkiina kama dhigin wamaa jacala alla kama dhigin adciyaa'akum ku idin sheegto abnaa'akum wiilashiina kama dhigin daalikum kagaas oo hooyooyinka inaad ka yeelataan hooyo ku dhashay wiil aadan dhalin inaad tira anaa dhalay kaa daalikum kiinaas qawlukuma un hadalkiin biafwaahikum afafkiin aad ka tiraahin hadal af ka soo baxay waa xukun male wallaahu alle yaquulu waa uu ku hadlaa alxaqa xaqa igarta uu ku hadlayaa wahwa alle yahdii wuu caddaynaya السبيل جدك عدينيا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه نليره أبو عمر جميل بن عمرو ليره يوحكو فانتم جري وحديه جري أنيقه لوا أغليان قبا لوا قلبي محمد سيغفيريا قلبنا إذن كما ملا معناها لوا قلبي محمد كديريان قبا مالنتي بدر يا وحال أركي أسو عرري kabna gacanta ku sita kabna lugta ku sita markaasaa layidhi waryaa kabtaadaas lugta kala kabteeda aawe wuxuu yidhi kadib waa la arkaa soo gacanta ku sita oo maxaa jira gacanta maxaad ugu sitata markaasuu yidhi maba ogaaninba idan aawi labadii qalbi intay aadeen oo beentiis alle wuxuu leeyahay alle nin raga laba qalbi uma yeelin rajulaa layidhi haweeney kaba daranba في جوفه جوف وحال راها نيف مرينكا أي راها جوف وحروف الجوف وتن لضحه أي هادين حوى على خذ غرائب أيو لو وجه أي لو جمعية إذن جوف كاس وكاس أله مجلين لبا قلبي وحبتك فيره ساس وهي لبا قلب أله مجلين وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم هويو إسلامها إذنك أذقبتان الظهاريسان أدهيسان هو يدي أوكالات إغتاي أدهيسان ألا كما يلين هويو ينكن كما يلين
hooyadeeyaad tahay aad tire aad dhehayso beentaa way hadalkaas alleh hooy ma kaaga dhigin maxaa yeelay xukunkaas alle waa uu caddeeyey suurad kale ku caddeeyo alleeyahay والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا كوهو إسلام كو ظهارة ويراه هو إذا إغتهي وحالغر هواء إني نفحريان إن نفحريان ديك الله بلض عصومان كفارة لغر هواء موغية إسلام ما نكفر منه هو إذا سنة منقنين جاهلي أيا جري جرتي سداس qofka hadduu dhaho islaantiisa u dhaho hooyada ayaa tahay hadduu dhaho mas aad igala mid tahay hadduu dhaho way ka furmaysay laakiin shareecadu taas way diiday tan naga dambayso leeyahayba dhalikum qawlukum biafaahikum hadal iska tiraahdo bas hadal iska dhaxdeen waa wama jacala adciyaakum abnaakum wiilish idin sheegtayna alle kama dhigin abayowgiina wiilishina kama dhigin ma jacala adciyaakum abnaakum ku idin sheegtay wiilishina kama una dhigin nabi muhammad alayhi salatu wasalaam nin la dhihi jiray zayd bin harithata ayaa asaga reerihiisa reer kale isku dhac isla caraba markaas reerihiisa laga adkaaday waa la soo adoonsaday maka la keenay khadiija bint khuwaylid nabiga zawjadiisa gadatay nabigay siisay wuu islaamay aabihiisa gaala ayaa u yimid wuxuu yidhi zeedow waa la heshiyey enakeen markaasuu yidhi gaalnimadan ogaa aaba anagu uma socdo nabiga calayhi salaatu wasalaam ninka markuu ogaaday xurnimo inuu ka doortay odoonnimo inuu ka doortay liajli islaam nabigu wuu xureeyey markuu xureeyey kadib nabigu wuxuu ka dhigtay wiilkiisa ilaa intaan la xarimin waaye markaasuu ala leeyahay dadkaad ka dhigatay wiilal dhaba idin ma aha wiil dhaba idin ma waa walaalihiina waa ahalkiin basa ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل قال وحكو هذا حق وكو هذا ويليشين معها هاي هدين أهن محيا هاين ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ادعوهم أغير لآبائهم أبيوض أغير هو ييرتان كسر أيا أقصد عدالة بدن عند الله الأكتيس ييرتان كس أبيث لغير أيا عدالة بدن فإن لم تعلموا حددنا أغين آباءهم أبيوض حددنا أغين فإخوانكم وولالهين في الدين حق الدين إذن كولا ومواليكم المأذرتين وايا قرابذين وايا ولا لو إيو يضليضها وليس عليكم دشين معها جناح ذنب معها فيما شيء فيه أخطأتم به أتكو قفتان ذم إذن كما سوغاريو واحد قف تراهان ذم إذن كما سوغاريو ولكن هسياشي ما تعمد وحي ماكتو قلوبكم قلوبتين أي ماكتو أي فيه جناح عليكم فيه عليكم جناح ذم إذن سوغاري وحي إذن أد ماكتان عنق أبيس أنا هين لوغو دارو وادكو ذم باويسا وكان الله الوح هذا غفورا الذنوب تدافع رحمنا حريصة ادعوهم لآبائهم أبيوض وغيرا وحاجر جرتي هذا وابلسك دافعي قف ماركو دنتو wax talqiil la dhaxal akhrin jiray oo qofka loogu daro hooyada loogu daro hooyadiisa loogu dara markaas ay dhahayeen hooyo markii la dhintaba hooyo loogu dara hooyo looga yeero dadka oo magaca labaad hooyo laga dhiga warkaas waa been warkaas leeyano Allah badahayaba ud'uuhum li aabaa'ihim addunya aakharaba abiyo wada looga yeero dadka huwa aqsad inda Allah kaasiya cadaalad badan in aaba loogu yeero ay cadaalad badan maxay yeelay faraca aabo iyo faraca hooyo kan aaba xoog badan kan aabo wana sabtirsi iyo abtirsiime iyo qaraaba ahaan iyo ehl ahaan iyo asagaas xoog badan laakiin fi ba'd al-awqat waxa dhacayso
hooyada inay xoog badato dadkii ahlu kitaabkii oo nabi waqtigiis joogay waxaa lagu ammaanay inay kashaayaan nabiga iyo qur-aanka wiilashooda ka daran wiilashooda se ka daran inay u garanayaan ayuu alla sheegay aladiina aataynaahum lkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum kuwa kutubta la siiyey rasuulka alle iyo qur-aanka way garanayaan wiilashooda say u garanaan oo kale alla yidhi wiilashooda say u garanaan oo kale alla yidhi marka cabdullahi bin cabaas waxaa cabdullaahi bin salaama la weydiiyey sheekada waxaa le bal ka waran wuxuu yidhi wiilasha anaka aan dhalnay saan u hubno ka darna ma aan u hubnaa nabi maxamed iyo qur-aanka maxaa yeelay wiilka waxaa laga yaabaa hooyadiis inay meelaha iska soo qaraabataa laga yaabaa ay dushi iga saarto aanan diidi karin laakiin ninkan allah ii sheegay rasuul inuu yahay nabi inuu yahay xaqiiqo waa buu yidhi bal waaban ka sii aqoon badnahay wiilashayda iyo nabagama sii hobaa buu yidhi marka taasoo kale way dhacdaa laakiin xaqiiqa ahaan wiilka aabbaha inuu ka dhaarto oo majmac uga dhaarto wala licaana la dhahaayo oo 5 dhaar maro ma ogiya kama haraayo ana ma dhalin ogama haraayo qoorta ugu jira kama har abadkiis huwa aqsadu cinda allah wuxuu leeyahay taas cadaalad badan cadli taas ayuu ku jira haya aabiis lama garanayo waqti colaadaha meelaha intii lagu tuuray lisiga cararay haddii kalaba waxaa laga yaabaa in qashinqub laga qaaday wicilmiyaa islaan idani kaliftay miyaa lama garanayo fa in lam taclamu aabaa'ahum fa ikhwaanukum fi ddiini aabiyowgooda haddiidan garanaynin waa walaalihiina fi ddiin xagga diinka walaalo oo ah ukhuwatuddiin waa ukhuwatuddiin walaalo waad leedahay bes waayahay ma ogiye qof aan la kasaynin oon la hubin lama la awaalo looguma daraayo fi ddiin wamawaaliikum iyo ilma adeertiina waaye qaraabadiina waaye waxaad leedahay in adeeraad leedahay in adeer ma ogiye aabba kale aan la hubin dusha lagama saarayo walaysa calaykum junaaxun fiima akhda'tum bih laakiin dembi dushiin maaha waxaad ku giftaan qof ayaa qof loo nisbeeyo hebelaa dhalaal yidhi shaacay noqotay sheekadii adigana hebelaa dhaladiyaad qaadatay waadna ku gefsan tahay dembi kaama soo gaarayo maxaase lagu dembaabayaa walaakin maa tacamadat quluubukum hase yeeshee wixi aad quluubtiin wixi ay u maagtay u qasado fiihi junaaxun walaakin aljunaaxa maa tacamadat quluubukum wixi quluubtiin ay maagto macnaa fii maa tacamadat quluubukum walaakin maa tacamadat quluubukum walaakin daan jawaabteeda maqan fiihi junaaxun waa dembi ayaa ku jira meeshayda وكان الله غفورا رحيما الوحو هذا الذنوب تلافة إن حريصة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا النبي نبي محمد أولى ومدك حقال بضن بالمؤمنين مؤمنين وحقا من أنفسهم نفوسهم كحقة نفتوض كحقة وأزواجه حاسس كيسة أمهاتهم هويو ينكوذوا وأولو الأرحام قرابة كو صاحبك بعضهم قاركوذ أولى كو حقة لبعض قارك أي حقان في كتاب الله على كتاب في كيسة حقان من المؤمنين مؤمنين تيكي حقان والمهاجرين مهاجرين تيكي حقان إلا أن تفعلوا لكن أن تفعلوا إن تفجان إلى أوليائكم أصحابتين معروفا إن طفشان وناك فجائز مدبنا واي جواب لكن محذوف إلا بمعنى لكن حيالي استثناها حدي مستثنى منه أين اسكو نوعهين مفرقة لراها إلا ذان لا قواي بمعنى لكن نقطة ديك العضف عادي نقطة اسكو نوع معاد محاكا البدلي إن إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم أصحاب دينا صاحب دينا معروف كي قبل الإسلام
laysku dhexlaayay islaamnimo hijiro isbahaysi laysku dhexlaayay waayo owliyada la sheegaayo kan hadda laga istidnoonayana ul arxaam waay qaraabada aabbahaa dhalay walaalahaa dhalay oo nasabkii uu idin kulmiyey waa idan dadkaa nasabaa kulmiyey dadkaana asxaabnimaa kulmisay isku nooc ma aha saa daraaddeeda ilaadan bimacnaa laakin waa mustatnaha iyo mustatnaa minhu ayaan iswaafaqin ilaa an tafcaluu laakin an tafcaluu ilaa awliyaa'ikum macruufa asxaabtiina macruuf inaad u samaysaan fajaa'izun waa wax bannaan kaana daalika kaasi wuxuu ahaaday fil kitaabi kitaabka qur-aanka dhexdiisa masduura mid lagu qoray waa kitaabulmaqaadir waa kitaabulmaqaadir yaa lagu qoray annabiyu owlaa bilmu'miniina nabiga mu'miniinta isaga ayaa xiga min anfusihim oo ka xiga naftaada iyo rasuulka hadday isgarab galaan naftaada rasuulkaad ku difaacaysaa asxaabu rasuulillaahi waxaa dhacday maalintii uxud in nabiga la difaacayo 9 qofood ay ku dhimantay gamunku loo soo wad ayaga isu dhigayaan seefta loo soo ayaga isu dhigayaan saasay ku dhamaadeen dhibaatada nabiga loo wado adiga inaad isu dhigtaa waa danta naftaada ay leedahay iyo nabiga dantiisa la fulinaya waxaa kow ka ah rasuulka wuxuu amray naftaadan ay rabto rasuulkan wuu reebay naftaadana way rabtaa reebitaanka la waafaqaya reebitaanka la waafaqaya sheegaas waa laga haraya awlaa bilmu'miniina min anfusihim nabiga muslimiinta isaga ayaa u xiga naftada taasaa ka xiga wa aswaajuhu ummahaatuhum xaasaskiisana waa hooyooyinkiisa xaasaskiisa waa hooyinkood xaasaskiisa waa hooyooyinkood nabiga calayhi salaatu wasalaam aswaajtiisa waxaa la dhahaye ummahaatulmu'miniina la dhahaye ummahaatulmu'miniina qoftoo guursadaba waa mu'miniinta hooyu u yahay hooyanimadaas ma aha xagga dhaxalka ma aha xagga khalwada ma aha laakiin xagga taxriimka waa iyo tacdiimka weynaynta iyo inay xaaram tahay inaan la guursan karin gadaashiisa caaisha radiallahu tacaala canhaa waxaa laga dhintay waxaa la guursaday lala aqalgala iyadoo 9 jira iyadoo 18 jirana waa laga dhintay iyadoo 68 jira iyo geeriyootay meeqay goroob ahayd 58 sano ma loo dhowaan karin marka waa sidaasoo hooyooyinka nabiga islaamaha nabigaan leeyahay waa hooyooyinka mu'miniinta ummahaatulmu'miniina lidhaha wa ulul arxaami bacduhum awlaa bibacd fi kitaab illah kuwa ahalnimad u saaxiiba qarabanimad u saaxiiba rixmnimad u saaxiiba qaarkooda qaar kale xigaa fi kitaabillah alla kitaabkiisay ku xigaan taasay kitaabkaasay ku taalaawa micnaha wiilka iyo aabihiis waa isxiga waa isdhexlayaan labada dhalad waa isdhexlayaan wixii ba rixim oo dhanba waa isdhexlayaan laakiin waxaa jiro dad aan dhalasho ka dhaxaynin laakiin isdhexlaaya sida muctiqa qofka la lahaan jiro la xureeyay ninkii xureeya dhexlaaya sida labada wada joogto isqabta hadduu mid dhinto kan kala dhexlaaya oo laakiin dhaxalka waa qayb mucayan oo shariicadu caddaysay laakiin shayga muhimka ah ul arxaamka inuu isdhexlaaya waaye tan maxay ka socotaa tan min almu'miniina ay ka xigaan walmuhaajiriina ay ka xigaan ul arxaami wa ul arxaami bacduhum awlaa bibacdin qaarba qaar kale xiga fi kitaab ilaahi ku xigaan yay ka xigaan min almu'miniina walmuhaajiriina mu'minnimo iyo muhaajiriin haddii la fiiriyo ayagaasa isxiga aadda intayna soo degin habka dhexalka noocaas intayna soo degin waxaa laysu dhexli jiray qofka muslimka ah hadduu ku dhinto deegaan muslimiintaasoo dhan ayaa dhexlaayay labada qof soo wada haajirtay ayagaas dhexlaayay labada qof la walaaleeyey ilaa reer madiina markii loo soo degaayay asxaabu rasuulillaahi qaarba qaar kale walaal looga dhigay ayagaas dhexlaayay diinta markay xoogowday
وحلو بدلي إن أهلنمو قرابنمو وضلشو إصدلت ليسو دحلو إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا إلا أن تفعلوا تنوحي استثنكتهاي إنك سوية مفرقيهاي وحي استثنكتهاي مؤمن ماذا مهاجر ماذا وحا كأوليسان دلشدا إذن قف أنكولا دلن لكن مهاجرة مؤمنة حول ملسين كرا ها والسين كرا وحلو سين كرا حب صدقة لو سين كرا حب دحل ميا كان وواكن إلا أن تفعلوا لكن أن تفعلوا إن تفشان إلى أوليائكم أصحابتين صاحبين معروفا وناك إن تفشان فجائز ومدبنان كان ذلك في الكتاب مسطورا كاس وحكو قرنا كتاب كالله كتاب المقادير وحكو قرنا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وإذ وقت يا نبي الله أخذنا أنقبني من النبيين نبي الكحقوذ أنك قبني ميثاقهم بلنكوذ أنقبني ومنك أدق أنك قبني بلن ومن نوح أنك قبني وإبراهيم أنك قادني أخذ إيوه وقبتي وقاد اسكمدوا أخذته وانقاتي أخذته وانقبتي اسكمدوا ساتراها وأكوف ضد بلنا كقادنا وموسى بلنا كقادنا وعيسى بن مريم وأخذنا وانقادنا منهم أي حقود ميثاقا بل أنك قادنا غليظا أذك محابلا ليسأل الصادقين ليسأل الإنويدنايو الصادقين كورنت الشيغايو عن صدقهم رنتوضا إنو كويدينايو وأعد الوأ الديار قريي للكافرين قال هذه عذاب الديار قريي أليما حنونجية وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم رسولك على إليه حس أصحاب تاذو الشيك مركان كقادر بلن نبي ذو دنبا نبي ذو دنبا لنمكا منك أيالي غار أهان تصح لراها من ذكر الخاص بعد العام من النبيين عام ومنك فرد ومركة تاسنا خاصة لراها ومنك أدقى أنك قادني بلن ومن نوح أنك قادني وإبراهيم أنك قادني وموسى أنك قادني وعيسى بن مريم أنك قادني وقت حس وأخذنا وأنك قادني منهم أي حقود ميثاقا بلن غليظا أذك بلن سمحوها قف كدين ترمي رومانتيس إن لويديو ولا أبال مريو قال كان عذاب لو ديار قريو ليسأل الصادقين عن صدقهم كورهن تشيغي إيمان كود كورهن شيغي كود رقمي إن لغويدي رنتوت كي أنهن شيغين وقال وأعد للكافرين عذابا أليما الوعود ديار قري قالوا عذاب حنون جنبضا سيلو سؤال يا الوحلي هاي فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين مرلا وحلا ضافي مالي رسولك النفتي سليه أمداد مقارسي سي ومدي الله إني دادي هم إذن سو قارسي إن كان نبقار وها رسولك إنو قارسي ومدان يا من خاتي نغنيسو لتكونوا شهداء على الناس هادو وماذا ميا الذين سو قارسي ما جاءنا من بشر إليهم وحب النوم إيمان أمة المحمدية مركز نبقى رهيا وان قارسي يا مرخاتي كاغا أمة المحمد والويدين يا مركز عدين يان لتكونوا شهداء على الناس أيقنوا حليه يا إذن شاق رسول كاين إليهم ويكون الرسول عليكم شهيدا إذن ميل لغفا كان يمالي سؤال أيا تعالى الله نوفض وعد للكافرين عذابا أليما قالت الوحود دير قريي عذاب حنون جنبضا
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. يا أيها الذين أخيارتي آمنوا حق الرميسيو اذكروا حس نعمة الله النعمة حس عليكم تشير وإذن نعمي وقرما إذ وقت وقال إذن نعمي جاءتكم أئذن تمت جنود عيدما أئذن تمت فأرسلنا واندرني عليهم دشود ريحا دبيلا كدرني إو جنودا عيدما لم تروها إذن أجيدنا كدرني وكان الله الوح هذا بما تعملون واحد عمل فليس بصيرا الأركايو إذ وقت إذن قرقارنا إذن نعمينا جاءوكم إذن يماذين من فوقكم حقين كرة إذن كغي يماذين ومن أسفل من الهوسيسة منكم إذن كهوسيسا إذن كغي يماذين وإذ وقت يقال إذن نعمي زاغت الأبصار إنه أي وريرين وبلغت أي قارتي القلوب وضنها الحناجر كالحمها أي سوغارين وتظنون أدمليسين بالله ألا أظنونه ملوين أدمليسين. أصحاب رسول الله وحالو الشيء يا نعم وين وألعقلي نعم وين وألعقلي يلو الشيء يا نبي عليه الصلاة والسلام مركو كسو هاجري مكة ومدينة يمت قالوا وعلى سي ويسوق إلى درستي يهود نصارى مشرك العرب وثنيين ولسبهستي وحالي نين بلد كان كسور ونتي بلد كان سوق قالي أي الدجال لسه تاجن وحور روائنه حوق نقول إنسيو قعنتيسا نكوا إن دمنا ولسه دولة حق كره من فوقكم وحق قلب حق بري يا لغا سو دولي يا سو دولي وحا كيمد نمن اللي يراهو بنو أسد يغطفان يا هقامنايا عيينة ابن حسن لبق قبيله مشى ومن أسفل منكم حق هوسنا ويكي مادن يا حق هوس كيمد قريش إيوه بنو كنانة يا هقامنايا أبو سفيان أفر قبيل أو وين مدينة هل قبيلة دقن واللي راو بني النجار بس دقن ينكسو كسو يرو كسو هاجرتي أي دقن ينبغي عليه الصلاة والسلام وحاكولا كسو بيري يهودي ماشي دقنت بني قريظة بني قينقاع وحي اللي جرجريو كاله شن قبيل أو وين أي كسو دوشي مدينة حل قبيلة دقن أصحاب رسول الله كربة ذا سكوين أبد كاد مسوا مرين أصحاب رسول الله نبغى وأولا تشذي محن سمينا بنانك ما نبعنا بس بلد كان دفاعك قلنا وحالو بطي إن بنانك لو بحو dad oo dagaalkii badar ka qaaday ayaa dagaalka aad u jeclaa inay banaanku baxaan rabay gadaal dambe waxa la yiri nabaga ma rabin banaanka waan ku qasabnay san yeelna waxa rasuul Allah aan iska joogin markaas yiri nabi soo qalab qaaday ma baaqdo waa baxay banaanka markuu u baxay waxa loo sheegay ciidan aan tawar loo helaynin inuu yahay nalira Abi Sufyan bin Harb waxleeyahay Salman al-Farisi ninkii aad ugu soo halgamay diinta islaamka ayaa wuxuu yiri Faris markaan joognay cadowga markuu san oo kala noqdo beledka aan degannahay waxaan ku wareejin jirnay khandaq god weyn oo dheer aan ku wareejin jirnay inta buurti xirtay moog in bakaraba god dheer lagu wareejiyay tobankii qofoodba waxa loo dhiibay 40 dhudhuna loo dhiibay lidi qoda markii godkii la qoday la taamyeelay ciidan waxa soo dul degay oo ciida ka badan aad u fara badan gaalida waa yaabtay waxay dhaheen fikrad carbeed ma aha
fikrad carbeed ma waa run fikrad carbeed ma aho salmaan alfarisi yaa keenay way soo geli waayeen hal qof ay isoo biimeey asagana godkaa lagu dhex dilay wax kaloo soo galo gamoon iyo ma ogiya wax kaloo soo bareero waa la waayey ayagoo sidii meesha u fadhiya ayaa alle fa arsalnaa calayhim riixa wa junuuda lam tarawha alle wuxuu ku diray dabayl iyo ciidamo ayna arkaynin muslimiinta ayna u jeedin dabayl waxaa ku dirintay dherigii dabka saaran dabka daminayso dherigii dab gadinayso teendhada ka siibayso meesha la kacayso qofka taagan lagdayso aqalka duminayso alle ayaa ciidan u soo diray malaa'iga la soo diray argagax ku riday waxaa dhacday xataa inay raran waayeen alaabtooda teendhooyinkii qoryihii teendhooyinka la suraayay ayagoo jiidaayo teendhadii maqaarkeeda la jiidaayo alaabtii waxay qaadi karaan ay qaateen gacanaha ku qaateen ay meesha ka carareen idaa nicmad la sheegaayo taas waa maalintaas wixii ka dambay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waan ku duulaynaa ma oge naguma soo duulayaan waan ku duulaynaa ma oge naguma soo duulayaan 800 sano ayaa dhabarka laga saarnaa gaaladu 800 sano ayaa dhabarka laga saarnaa kadib muslimiintii isku soo noqdeen islaayay iscolaadiyey waxaa furfurmay kala dambayntaa furfurantay isku xirnaanshihii dhaawacmay idan allah mu'min isku xiran u gargaaray laakiin muslimiin aan isku xirneen hoggaan aan lahayn oon diinta ku dhaqmaynin algargaarku waa la noqday hadda watan hadda muslimiinta ayagoo hal dowlad ahaa oo 800 sano dowlad ayaga aan ogoleen aan la dhisi karin watan hadda saan loo baaba'ay gaala soo noqotay marba hadda muslimiinta ay is aragtay markaasay cagta marisay kala goosatay maka iyo madiina mayna qabsanin inba kale way qabsatay gaaladu marka taas laga sheekaynaya ya ayuha alladina aamanu dhkuru nicmatallahi calaykum alle wuxuu leeyahay mu'miniinay kuwa xaq rumeeyayo nicmadii alle xusa goormay ahayd id jaa'atkum junuudun marka idin yimaadeen ciidamo fa arsalnaa calayhim riixan wa junuudan lam tarawha waxaan ku dirnay dabayl iyo ciidamo idnan u jeedin oo malaa'iga wa kaana allahu bima tacmaluuna basiira allana wuu arkaaye waxaad falayseen maxay falaayeen khandaqiyaa la qoday iday dhaxan jirto ay gaajo jirto dad yaraan ciidan yaraan uu jiro yaa la qodaaya gaajo aan mithal lahayn maalintaa jirtay waxaa dhacday nabiga calayhi salaatu wasalaam godkii la qodaayey ayaa waxaa ka soo dhexbaxay dhagax weyn oo la gudbi waayey waa laga noogay faas kastaa waa lagu dhuftay qalabka biraha lagu jebiyo dhagxaanta waa lagala daalay nabaga loo sheegay waa u yimid markaasuu qabsaday faaska hal maruu ku dhuftay iftiin weyn ayaa baxay nabaga allahu akbar wiil asxaabtan allahu akbar ay tiri mar labaad ku dhuftay iftiin weyn ayaa baxay nabaga allahu akbar wiil asxaabtan allahu akbar wada tiri mar saddexaad ku dhuftay iftiin weyn ayaa baxay asxaabti nabaga ka horma allahu akbar ayagan allahu akbar ay dhaheen markaasuu yidhi markii koowaad aan ku dhuftay faaska waxaa ii iftiimay sarihii kisraa farisiinta sarahooda ii iftiimay waxaa la ii sheegay sarahaas in muslimiinta ay furan doonaan markii labaad iftiinka ii baxay waxaa ii iftiimay sarihii ruum muslimiinta ruum inay qabsan doonaan waa meesha magaca yurub laleeyahay waa markii saddexaad waxaa ii iftiimay saraha yaman waxay dowlad xoog badan ay ahayd nabilahi suleymaan iyo nabilahi daawuud iyo meesha joogi jireen ay ahaayeen inay qabsan doonaan muslimiinta ayaa la ii sheegay niman munaafiqiina ku dhex jiray asxaabta ku dhex jiray
waxay dhaheen bal ninkan beentiisa daya kaadeen u bixi la'aanahay markaasuu leeyahay rum iyo faris aad qabsanaysaan idab daradood bal allan waa fidaaxay aakhir dambe marka waa taasoo wa kaana allahu bimaa tacmaluuna basiira camalka la falaayo dhagaxaas la jibinaayo godkaas la jeexaayo dhaxantaas iyo gaajadaas iyo colaadaas loo bareeraayo waay yaqiina meesha taalay ma haddii yaqiina jirin waxaa laga yaabaa inay xaajada si kal noqoto id jaa'uukum min fawqikum wa min asfala minkum id jaa'uukum markay idin yimaadeen min fawqikum xaggiina sare iyo wa min asfala minkum xaggiina hoose xagga sare intee waaye xagga bari wa min asfala minkum xagga hoose intee waaye xagga galbeed bariyaa ka yimid waxaa ka yimid nimankii la dhihi jiray banuu asad iyo qadfaan hogaamiyahood uu yahay cuyaynat ibnu xisnin min asfala minhum xagga hoose yaa ka yimid xagga qoraadhac yaa ka yimid waxaa ka yimid quraysh iyo banuu kinaana qaa'idka hogaamiyada uu yahay abu sufyaan 4 qabiil way hadeerba 3 qabiil oo waaweyn oo yahuudana way dambaysa way soo geli doonaan markay soo fadhiistaan kuwan madiinana hal qabiila degan murug maalintaa ka weyn muslimiinta ma qabanin waid zaaqat alabsaaru waid waqti ayuu alleh idin nicmeeyey zaaqat alabsaaru indhihii ay wareereen meel la dayo yaa la waayo dhankasa ciidan hub unbaa soo taagan markaasoo all idin nicmeeyey uu idinka difaacay ciidanka isaga ah asoon loo hub qaadin dabayl iyo malaa'ig una eriday wa balaqat quluubu alxanaajira qalbayaashin ay gaareen kalxamaha qofka markuu aad u naxo qalbigiisa waxaad moodaa inuu wadnaha inuu afka soo gelaayo maxaa yeelay waxaa mutafaqa wadnaha inuu shanqara oo bugbug dhahaayo qofka xataa hadduu inkaro wadnaha afba usoo dhawaan hadduu dhaxtaa bugbugtaasaan la inkiri karin wa tadunnuuna billaahi dunuun waxaad malayseen alla eed malaysa melooyin maxay yihiin ma gargaarsanaynaa maalana qabsanayaa diinta ma ka baxaynaa ma ku sugnaanaynaa melooyinkaas waa hunaalika btuliya almu'minuuna wa zulzuluu zilzaalan shadiida hunaalika btuliya almu'minuuna makaanka asaga waxaa lagu ibtileeyey mu'miniinta wa zulzuluu zilzaalan shadiida gilgilid daran waa la gilgilay aayadan ku noqon aayadan xoogaa fasiraadkan aad u yara qalqaladnay oo ma qaldin laakiin wax baan isku dhex walaaqnay yaa ayuha aladiina dowlkii akhyaarti aamanuu xaqu rumeeyayo udkuruu xusa nicmat allah al nicmadiis xusa calaykum dushiin an idin nicmeeye xusa id waqti idin nicmeeye jaa'adkum a idin timid junuudun ciidamo a idin yimaadeen fa arsalnaa waan dirnay bu ala leeyahay calayhim dushood riixan dabeelaan ku dirnay iwa junuudan ciidamo ayaan ku dirnay lam tarawha oo idinka idinaan u jeedin wa kaana allaahu all wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiiran mid arkaaya oo ah khandaqi hooshiisa id waqtiba alle idin nicmeeyey jaa'uukum ay idin yimaadeen gaaladii min fawqikum xaggiina kore oo idinkaga yimaadeen oo ah bari wa min asfala minkum xaggiina hoose ay idinkaga yimaadeen oo ah galbeed waayahay waa id waqtiba alle idin nicmeeyey zaaqat alabsaaru indhihii ay wareereen meel ay dayaam aan lahayn wa balaqad ay gaartay alquluubu wadnihii alxanaajira kalxamaha ay gaareen oo watadunnuuna aad malayseen bilaahi alleh aad u malayseen adunuuna melooyin al mi idin gargaaraya mi idin hoojinaya se ay wax noqon doonaan markaasoo alle idin gargaari meesha ayada marka maxaa xasilay waxaa xasilay imtixaana xasilay hunaalika meesha ayada ay ubtuliya la jarrabay almu'minuuna mu'miniinta maalintaas ayaa la jarrabay wa zulzulu waa la gelgelay zilzaalan gelgelid ayaa la gelgelay shadiidan daran hunaalika btuliya almu'minuuna wa zulzulu zilzaalan shadiida meeshaas mu'miniinta la jarrabay waa la gelgelay
waxay meesha soo dhigteen alif laam miim axasiba annaasu an yutraku an yaquluu aamanaa wahum laa yuftanuun taasay meesha soo dhigteen allay leh all waa u noo sheegay imtixaan la-aan inaan laisdaynaynin taasay meesha soo dhigteen ama munaafiqiintii wax ka bedelna isticmaalan ayaga waid waqti alle idin gargaaray yaquulu munaafiquuna munaafiqiintii ay dhahayeen iwaladiina kuwi fii quluubihim quluubtooda maradon jiro ay ku sugna maa wacdana allaahu alla nooma yaboohin warasuuluhu rasuulkiisa nooma yaboohin ilaa quruuran kadima ogiye munaafiqiintii ayaa waxay dhaheen inaa lanansuru rusulanaa waladiina aamanuu fi lxayaati اdunyaa wa yowma yaquumu lashhaad fasirkeeda ee wuxuu ahaa al inuu leeyahay rusushaynan u gargaaraynaa mu'miniintan u gargaaraynaa adduunkii aakhiradaba markaasay dhaheen gargaarkaa la sheegaayo anag unbaana la dagaayay dheheen anag unbaana la dagaayay gargaar ma jiro walciyaadu billah gadaal dambaa la ogaaday markii ciidamadii intaa la ekaa iska holeeleen iska qulqulan ayagoon waxba loo geysanin markaasaa la ogaaday gargaarka inuu xaqiiqaha o alla inuu u gargaarayo laakiin gargaarka asaga hadeer aaway waxaa loo waayey muslimiintii quneeda la waayey kuwa taariku salaada masoomayaala dilaayaala tuuga khaa'iniina unbaaba soo harayba muslimiintii quneedu waxay noqotay waxyaray noqotay waxyar raashin cusbo lagu daro oo kale noqdeen marka aqlabiyada iskale xukunka إذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذنوا فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا وإذ وقت على إذن قرقاري قال أيتري طائفة كح أيتري ومنهم منافقين كمذا وإذ ذان هذا أذكر وأقدر كرتيا وإذ وقت حسيا نبي الله قالت أيتري طائفة كح ومنهم منافقين كمذا يا أهل يثرب رير يثرب رير مدينوي لا مقام لكم نقايد إذن مسوقنان وفرجعوا لابتا كلا كتا ماشا إدهان ويستأذنوا وحا إذن طلباي فريق كوحا إذن طلباي ومنهم منافقين كمذا النبي النبغي كإذن طلبايان محيليهن يقولون وحيليهن إن بيوتنا قريهين عورة وكو عورة وكو ضيعا وما هي ما نأها بعورة كو ضيعا معها ما يريدون مرحبا إلا فرارا عرى المؤقية حدي ميشا عرى مدينة قلان إلا كل كهرابة نبي عليه الصلاة والسلام إنو بحو وقو أنصدي مدينة بنان كذا اللي جوغا مركي ليهين ميشا ميل إذا من تعالى النقضة مدينة قلي كجيدان ولو دخلت حدي اللي قالوا عليهم تشوذ حدي اللي قالوا من أقدارها مدينة جهوين كذا هذي لو وصل قالوا عيدينك وكسو أورو ثم مركا كدب سئلوا لو ويديو الفتنة قانا ما لو ويديو لا آتوا ويسين لهاين قال داس ها قال ما يسين لهاين ثم مركا كدب ما آتوا ويسين لهاين وما طلبثوا من نقان لهن بها مدينكم من نقان لهن إلا يسيرا إن يرمى أقية واي وإذ قال ضائفة منهم يا أهل يثرب مقع مدينة قديم إهوى قفكي الدقي أساسي هراء الدقي أي اللي يجري يثرب مقع لوغا دقي مركز إلي رد يثربوا لا مقام لكم ما أنت النقادي إذن متى لميشان فرجعوا لابتا قوليهن كل لابتا إذن كان الله حرفان إيوه أي بكحيهم با هادو هدي قوليها لو لابتو hadda qaanqodan haddii la doono meela lasoo duuga lasoo dulmara laakiin waardiya laga haya khandaqa ma loo dhowaan karo haddii laga tago laakiin waa dayacan yahay ay waxay rabaan in laga tago madiina loo huleelaba farjicuu laabtay leeyihiin waayahay taa kuma eka fayasta'dinu fariiqu minhum annabiya koox ayaga ka mida munaafiqiinta ka mida nabaga idin weydiisanayaan waxay rabaan inay laabtaan beledkooda ku laabtaan waxay leeyihiin يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة وحيليه قريهين وقرية ضيعان العورة وضيعنان عورة اللي راها
meel feeditaankeedu lagu ceebo waa la yidhaahaa cawrada macruufka ah laakiin hadda waxay ula jeedaan guryahayna waa dayacan yihiin saasay leeyihiin in yuriiduuna warkaa runtooda ma ahe in yuriiduuna ilaa firaara ey maa yuriiduuna ilaa firaara carar ma ahaane wax kale ma rabaan guryahood ma dayacna laakiin waxay rabaan inay cararaan haddii ayba dhacdaba in loo soo galo walow dukhilat calayhim min aqdaariha ثم سئلوا الفتنة لآتوها haddii madiino geesaheed loogu soo daato ay wadhax farfadhiya loogu yimaado gaalnimo la weydiisto gaalooba la dhaho degdegay gaalnimada dhiibayaan way gaaloobayaan markii gaaloobaan maxaa dhacaaya wamaa talabathuu bihaa ilaa yasiira kuma nagaanayaan madiina dhexdeeda markaa kadib in yar ma ogiye intaa yariista ay ku nagaanayaan laba wej ayaa lagu sheegay mar waayo oo way dhammaanayaanba marka labaad maba ku sii baaqi ahaanayaan markii fadna la weydiiyey kadib islaamnimo kuma baaqi ahaanayaan isla markiiba way gaaloobayaan waa munaafiqiinta oo madiina joogtay waayo walaqad kaanuu caahadu llaha min qablu laa yuwalluuna aladbaara wa kaana cahdu llahi mas-uula dadka sidaan wax yeelaayo oo gaalnimadooda saanay u fudud tahay kolka horena waxay ballan qaadeen inay difaacaan diinta walaqad kaanuu xaqiiqi waxay ahaayeen caahadullah alla kuwa la ballan galay min qabla horaan laa yuwalluuna inayna jeedinaynin aladbaari duburadu inayna jeedinaynin ay ballan qaadeen wa kaana cahdullah alla ballankiisin wuxuu ahaa mas-uulan mid laisweydiiyo walaqad kaanuu caahadullaha min qablu horay alla waxay ula ballan galeen alla ballankiisa waa ballanka rasuulka lala gale waxay ula galeen rasuulka laa yuwalluuna aladbaara inayna dabada jeedinaynin cadow inayna dabada u jeedinayno difaacayaan madiino ay ku ballan galeen haddana way ka baxeen soo maaha wa kaana cahdullaahi mas-uula alla ballankiisa wuxuu ahaa mid la weydiiyo qul lan yanfacakum alfiraaru in farartum min almawti aw alqatli waidan laa tumatacuuna ilaa qaliila qul waxaad tidhaahda yaa nabiy allah lan yanfacakum idinma anfaco alfiraaru carar idinma anfaco in farartum haddaad carartaan min almawti geeri haddaad ka carartaan aw alqatli mise dil aad ka carartaan cararkaas idinma anfaco waidaa isla waqtigaas laa tumatacuuna ila idinma raaxaynayo ilaa qaliilan in yar ma ogiya haddaad tidhaahdaan meeshan geeriya ka soo dhow aad ka cararto mis aad tidhaaho colkaan coldad dhammaynayo way ka carar aad meesha ka cararto in yar unbaad joogaysa adduunyada waidan laa tumatacuuna ilaa qaliila in yar unbaad joogaysa aakhirka waad geeriyoonaysaa un wax kasta waqti kasta joog madaxa waa un geeri idan كل واد جريون يساي جري شر له جريو قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قل واعترى هذا يا رسولنا من ذا الذي يعصمكم من أحد كابا ذا كاس هذا الذي كاس يحسمكم إذن إلى علينا من الله الحق العقاب كيس إذن إلى علينا إن أراد الحدود بكم إذنك سوءا حمان هدو إذن لدون يا إذنك الرهيباي أو أراد مس هدو إذن لدون بكم إذنك رحمتها نحريس هدو إذن لدون يا إذنك الرهيباي نحريس قفنا ولا يجدون مهلايان لهم أي لأنفسهم نفوس ومهلايان من دون الله على كسوك وليا أحد أرنكو المعمولة مهلايان ولا نصيرا متوقرقارا مهلايان قل من ذا الذي يحسمكم أحد إذن دافع أيه إذن كرهيبا من الله إذن كرهيبا آو إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة هدو إذن لدون حمان يا هر استاكر الله هدو وناك إذن لدون يا هر استاكر الله ومايا ولا يجدون لهم من دون الله ولي ولا نصير ولا يجدون مهلا لهم أي لأنفسهم ومهلا من دون الله وليا أحد أرنكو ذا معمل مهلايان ولا نصيرا مدو قرقارنا مهلايان الله سبحانه وتعالى أعلم.